السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaad ku soo dhawaataan darsiga lixaad ee koorsadii aan ku baranaynay ku hadalka afka carbeed. waxaan ku guda jirnay marxaladii labaad ee aan uga hadlaynay alxiwaar bayna al-usra. xiwaarkan wuxuu dhex mari doonaa hooyo iyo gabadheed. waxba yaan ka hor dhicin daawasho wacan. لماذا وجهك شاحب يا ابنتي؟ hooyadii ayaa bilowday waxay weydiisay limaada wajhuki wejigaagu shaaxibun muxuu u bedelan yahay yabnatii gabadheedii. shaaxibul weji qofka wejiga bedelan ayaa la dhahaa. أصابني الزكام فقط لا شيء آخر يا أمي. iyadan waxay ugu jawaabtay asaabani zukaam waxa i asiibay hergab faqad oo kaliya. hergab uunba i haayo laa shay-a aakhara yaa ummi wax kale ma jiraan hooyo. intaasay ugu jawaabtay. إن قلبي يوحيني أنك تخفين عني شيئا ما. افترضي أنني صديقتك هيا أخبريني ما الأمر يا ابنتي. iyadu waxay dhahday ina qalbii yuuxiini qalbigayga wuxuu ii sheegayaa annaki adigu tukhfiina canii inaad iga qarinayso shay-an maa arrin uun inaad iga qarinayso. iftaradii waxaa ka soo qaadaa annanii sadiiqatuki inaan ahay saaxiibada haya akhbiriinii haddaba ii sheeg mal amru maxaa jiro arrinku siduu yahay ii sheeg. أحبك يا أمي والله لو كنت كبعض الأمهات لما بحت لك ما في داخلي. gabadhi waxay dhahdaa markaa uxibuki waan ku jeclahay yaa ummii hooyey wallaahi allan ku dhaartee low kunti haddaad ahaan laheyd ka bacdi alummahaati hooyooyinka gobol kamida oo kale haddaa ahaan laheyd lamaa buxtu laki maan kuu caddayn lahayn maa fii daakhilii waxa gudahayga ku jira laakiin hadda waa kuu sheegaa saasay dhahday. إنك ذات حظ يا ابنتي أمك تفهمك الحمد لله. hooyadii marka waxay dhahday inakii adigu gabaryahay daatu xadin gabar nasiib lahaa tahay yaa ibnatii gabadhaydii ummuki hooyada tafhamuki way ku fahmaysaa alxamdulilaah ilaaha mahadda iska leh. أدام الله بقاءك يا أمي. iyadu way u ducaysay markaasi waxay tiri adaama allah ilaahay ha daa'im yeelo baqaa'aki jiritaankaaga yaa ummii hooyey. waa kaa waa u ducaysay. آمين آمين ولكن ما هو الأمر الذي يقلقك؟ hooyadii waxay dhahday aamiin aamiin ilaahay hanoo aqbalo walaakiin hase yeeshee maa huwa alamru aladii yuqliquki arrinka ku walwalgelina muxuu yahay. maa huwa alamru arrinku muxuu yahay alladii arrinkaasoo yuqliquki ku qalqalgelinayo ii sheeg arrinkaa. إنما هو الذهاب إلى الخارج لكي أكمل الدراسة هناك. marka waxay dhahday inamaa huwa adihaab wax kale maaha waa inaan aado ila alkhaariji dibadda wadanka aa ku nooshahay dibaddiisa ayaa khaarij la dhahaa. inaan wadan kala aado waxbarasho u aado likay ukmila si aan ugu soo dhammaysto adiraasata waxbarashada hunaaka halka waxaas ay walwalgelinayo saasay dhahday dibadda inaan aadaan rabaa. أمر جيد لكن أليس المستقبل أحسن من هذا لفتاة مثلك؟ amrun jayid waa arrin fiican laakiin hase yeeshee alaysa almustaqbal mustaqbalku miyousan ahayn axsanu mid ka wanaag badan min haadaa inaad dibadda aado. arrinkan ah inaad dibadda aado miyuusan mustaqbalku ka wanaag badnayn lifataatin gabarna u wanaag badnayn mithliki adigoo kalaa. markii hooyadu talay gashay ما هو المستقبل الذي تتحدثين عنه؟ marka waxay weydiisay maa huwa almustaqbal mustaqbalku muxuu yahay. hooyadii weydiinaysaa alladii tataxaddathiina canhu mustaqbalkaasoo aad ka sheekaynayso xoogaa isdabaalinaysaa arooskii waxay diidan tahay. لماذا تتجاهلين يا ابنتي؟ أريدك أن تكوني أما. marka waxay dhahday limaada tatajaahaliina maxaa isku mugsiinaysaa jaahil iskaa dhigaya ibnatii gabadhaydii uriiduki waxaan ku doonayaa an takuunii inaad ii noqoto umman hooyo inaad noqotaan rabaa saasaan rajaynaa ayay dhahday maxaa isku dabaaline. أمي سأكون لكن بعد الدراسة. kadib waxay dhahday gabadhii ummii hooyey sa-akuunu waan noqon doonaa laakiin goorme waa bacda diraasa waxbarashada kadib ayaan noqon doonaa ee isuka idadejini saasay dhaha. أبعد سنوات أخرى ألا تخافين يا ابنتي أن يفوتك الوقت؟ لقد تعلمت ما يكفيك. marka waanay gashay waxay tiri bacda sanawaatin ukhraa sanado kadib miyaad sii joogaysaa sanado kale miyaad sii joogaysaa alaa takhaafiina miyaadan ka cabsanaynin yabnatii gabadhaydii an yafuutaki alwaqtu waqtiga inuu ku dhaafo miyaadan ka cabsanayn laqad tacalamti maa yakfiika wax kugu filan maa yakfiiki wax kugu filan waad baratay miyaadan ka cabsanayn waqtiga inuu ku dhaafo. أمي ألا تحبين أن تسمعي ابنتك وهي تدعى يا دكتورة؟
kadib waxay dhahday waa iska celini mogtaa ummi hooyay alaa tuxibiina miyaadan jeclayn an tasmaci inaad maqasho ibnatiki gabadhaada wahiya tudcaa iyadoo lagu yeera yaa digtoore iyadoo la dhaha inaad maqasho miyaadan jeclayn saas ayay dhahday بل أحب إلي أن أسمع أطفالا يقولون لي يا جدتي. hooyada marka waxay dhahday bal axabu ilaya waxaa ligaaga jeceyl badan yahay an asmac inaan maqlo atfaalan caruur yaquuluuna lii igu dhahay yaa jaddatii ayeeyo ayeey ilay dhaanka jecelay digtoora in lagu dhahdhaho saasay dhahday إن شاء الله ستسمعين يا أماه. marka waxay dhahday insha allah ilaahay hadduu doono satasmaciina yaa ummaa hooye waa maqli doontaa ilaahay hadduu doono insha allah saasay ku dhahay كم أحبك يا ابنتي، الله يحفظك ويرعاك. markaas waa lays mucaanaqeeyey hooyadu waa u duceysay waxayna ku dhahday kam uxibuki imisaan ku jecelahay yabnatii gabadhaydii allah yaxfadki ilaahay ha ku ilaaliyo allah yaxfadki wayarcaak ilaahay ha ii kaa ilaaliyo darsiga lixaad halkaa ayuu ku egyahay waxaan idinka codsanayaa yacni haddii aad wax ka faa'iideyd si yacni dadka kale ugaa leegta ku badi muuqaalku leegta wax badan ayay u dartaa wayna sii faafisaa sidoo kale sabskareybta saara kunka wax yaraan nooga dhiman intaan dersiga toddobaad aan ku kulmayno waxaan idinka tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. لماذا وجهك شاحب يا ابنتي؟ أصابني الزكام فقط، لا شيء آخر يا أمي. إن قلبي يوحيني أنك تخفين عني شيئا ما. افترضي أنني صديقتك، هيا أخبريني ما الأمر يا ابنتي. أحبك يا أمي، والله لو كنت كبعض الأمهات لما بحت لك ما في داخلي. إنك ذات حظ يا ابنتي، أمك تفهمك. الحمد لله. أدام الله بقاءك يا أمي. آمين آمين. ولكن ما هو الأمر الذي يقلقك؟ إنما هو الذهاب إلى الخارج لكي أكمل الدراسة هناك. أمر جيد، لكن أليس المستقبل أحسن من هذا؟ لفتاة مثلك. ما هو المستقبل الذي تتحدثين عنه؟ لماذا تتجاهلين يا ابنتي؟ أريدك أن تكوني أماً. أمي سأكون، لكن بعد الدراسة. أبعد سنوات أخرى. ألا تخافين يا ابنتي أن يفوتك الوقت؟ لقد تعلمت ما يكفيك. أمي ألا تحبين أن تسمعي ابنتك وهي تدعى يا دكتورة؟ بل أحب إلي أن أسمع أطفالاً يقولون لي يا جدتي. إن شاء الله ستسمعين يا أماه. كم أحبك يا ابنتي، الله يحفظك ويرعاك.